أصحابتا السلام عليكم أصحابتا جمعة وناكسن جانك مر لباد iyo mar saxaad ku soo dhawaada asxaabta channel ka cusub magacaygu waa Cabdiladiif muuqaalkan maanta waxay ku dhaliyay halkan barnaamijkan iska akhrisanayay kadib baan israaday bal asxaabta la wadaag baan israaday akhriska faa'iidadu leeyahay ma garanaysa akhriska faa'iidadiisa aad bay u badan tahay nin waxaan ku yidhi vivid reader ah oo akhriya ayuun baa garan karaya barnaamijku kooban yahay laakiin faa'iidadiisa badan waayo waxaan doonayaa in la wadaago 10 shay oo akhriska laga faa'iido kow akhriska waxa laga faa'iidaa maskaxdeena waa muscle ma garanaysa waa muruq marka muruq kastana si looga shaqaysiiyo ma garanaysa active u ahaanaya ma garanaysa tusaale ahaan kale imka puzzleska ama gamekan puzzleska ama xiriyaalayaasha ama chess oo kale hadii uu qofku ciyaaro maskaxda korinkeeda ka qayb qaadata waxyaabaha kale maskaxda korinkeeda ka qayb qaadata waxa kamid ah imka dad gym-ka kala gasho ama exercise samayso kale waxay yiraahdaan if you want to improve your mood go exercise ma garanaysa marka kow taas waa kow laba faa'iidada labaad ee akhriska laga faa'iido waxa kamid ah luqadda qalaad waxay ku yiraahdaan stress reduction ma garanaysa marka imka hadii stress ku hayo arbishku ku furan yahay oo kale waxay yiraahdaan lose yourself in a great story hadii arbishku ku furan yahay ma garanaysa buuq badan jiro buugar baad ka qaadanaysaa sheeko ka dhex baxaysaa dad doonaysa arbishka ka dhex baxdo buuq qaado lose yourself in a great story taas waa taas marka cidda imka sii dhacaysa waxa israaday bal cidda sii dhacaysa ee quruxda badan iyo buugna akhriyay kadib waxay la sharraay ah inaan la wadaago 10 shay oo akhriska laga faa'iido shayga saddexaad ee akhriska laga faa'iido waa iska cad waa aqoon ama knowledge ama ma garanaysa marka Soomaalidu waxay ku maamaalaan marka war la helo ayaa talo la helaa markii go'aan aad qaadanayso wixii ma garanaysa aqoonaad haystay ayuu isticmaalaysaa Allahu musta'aan shayga afraad ee laga faa'iidi karo Allahu musta'aan akhriska buugaagta waxa kamid ah ilaaha luqadda qalaad waxa lagu yiraahdaa vocabulary expansion eray bixintaadii baa ku kordhaysa markaad buug akhrido intaas oo kalimadood buuga aad kala baxaysaa waliba markaad buug akhriyayso kalimaha aad doonayso inaad ku cusub oo kale waa la qortaa ama buuga highlighter loo qaataa ma garanaysa marka dad akhriskaagu bato kalimadii isticmaalaysa baa qani noqonayo kala arag ma garanaysa taasna waa taas shayga shanaad ee akhriska laga faa'iido waxa kamid ah memory improvement waa aniga lahaa maskaxda korinkeeda wax ka qayb qaata inaad buug akhrido ama tusaale ahaan oo kale inta barnaamijka u baxdo kale ma garanaysa dhirta iga dambayso kale iyo ama aad ka lugayso ama dhirta waqti la soo qaadato shimbiraha yar ka dalceeya waxaas oo dhan waxay ka qayb qaataan korinka maskaxda ma garanaysa hadii laakiin ilaa maanta guri ku jirto qolna ku jirto afta gaar baad ku dawaqaysaa depression kayga ma garanaysa waxyaabaha laga qaadaaba ama stress-kana aan ku sheegay waxa laga qaadaaba guriga qofku intuu guriga aflata saac ugu jiro wixii oo kale ama gelinka dambe oo kale waa la iska lugayaa banaanka loo baxaa intuu caafimaad xitaa maanta vlog ka diyaariyay shayga lixaad ee laga faa'iidi karo maxay tahay akhriska luqadda qalaad English waxa lagu yiraahdaa strong analytical thinking skills markaad buug akhrido fikirkaaga baa kordhaya tusaale ahaan kale imka akhriska waxyaabo laga faa'iido waxa kamid ah creativity ama hal abuur akhriska hal abuurkana waa adduunka inta isku dhaafay tusaale ahaan kale imka laba buug oo akhriyaysaa buugan raay yar oo kaaga soo kordhay buuga raay kaaga soo kordhay baad isku tolaysaa intaas ku qarxaysa laga yaabo marka dad Soomaalida noo fiirsatana hal abuurka waxa la doonayaa in kor loo soo qaado galaaska akhriskiisa hoos u dhigay marka adduunkan waxa lagu raafaa akhriska hal abuurkuna waa wanaag cusub oo soo bandhigtan kana hore loo arki jirin taasina waa taas shayga toddobaad ee laga faa'iido akhriska waxa weeyaan luqadda qalaad wuxuu noqonayaa improve focus imka dad fiirsto dhowrkii sano ugu dambeeyay social media ama baraha bulshada ayaa dadkii
maxay tahay dee qaatayba qofku saas uma lagu foorraa waxaan ku yidhi waa shaqu noqday baalkiiba dee baalka hadduu meherad yahay dee lacag kaasoo geliyaan la gelin laakiin waxaan waa seef oo marba sidii isticmaasho ma garanaysaa tusaale ahaan oo kale iminka mobilkayga anigu waxyaabaha ugu badan aan isticmaalo waxaa ka mid ah linkedin baalka la yidhahdo shaqooyinka laga apply gareeyo iyo twitterkana inkastay ku xidhanta cidda follow garayso twitterkana waaba waxa weeyaan jaacad soconaysa ma garanaysaa weeyaan twitterku markaa labadaas aniga igu isticmaal badan waayo labada waxaan ka bartaa dee waxyaabaha kale whatsapp iyo snapchat iyo kuwa dee everywhere once in a while waxaa laga yara eegaga laakiin dee maadaama faa'iido badan aan iga soo gelayn ama aanu wax saasaan kasii baranayn dee markaan qof u jawaabayo ama marka masajada lagu taagan yihiin aan qof u jawaabayo ayman ka jawaabaa shayga sideedaad ee laga faa'iido allahu mustacaan akhrisku waxa weeyaan luqadda qaad wuxuu noqonayaa better writing skills qofku ka akhris badan yahay ka qoraal fiican yahay hadaad u fiirsato luqadda qalaad maamaha waxay ku dhahdaan a better reader becomes a better writer waa intii markaan sheegay markaad akhriska sii kordhiso qoraalkaaga baa fiicnaanaya vocabulary expansionkan sheegayo waxaan ku kelmadahayga baa qani kusii noqonayo kusii kordhaya taasina waa taas shayga sagaalaad ee laga faa'iido akhriska luqadda qaad wuxuu noqonayaa tranquility intan tobanka shay la wadaagay oo soo qortay saan hadalkayga kala cararin markaa script bay dhahdaan oo wixii aad yara qorqorto sidii aad maskaxda maxay tahay aad ugu shar qabato marka waxay dhahdaan writing clarifies the mind marka waxaa qorqorto dee wixii waa ku kala cadaanaya magaranaysa inta halka la isku dhex qabsan lahaa marka waxa luqadda qalaad kaada imagination is more important than knowledge Socrates iyo mooyee Newton qof yidhi marka dee hal-abuurkan sheegay weeyaan imagination waxa weeyaan inaad waxba aad sawirato marka maxay kala duwan yihiin tusaale ahaan oo kale imika buug baad akhriday buugga imika la yidhahdo kale imika atomic habits buugga la yidhahdo atomic habits oo kale James Clear oo qoray filimkiisii baad daawatay buuggana waad akhriday filimkiina waad daawatay tusaale maxay kala duwan yihiin markaa waxay ku kala duwan yihiin markaad buugga akhrido wixii adaa sawiranaya oo maskaxaad ayaad sawirkaad ku qaadanaysaa ma garanaysaa taasna hal-abuurkii imaginationkii bay ku soo noqonaysaa weeraas markaad aad filimkii toos u guda gasho dee wixiiba iyadoo muuqaal aad daawanaysaa markaad muuqaal daawatay markaad wixii aad sawirtay kala duwan ma garanaysaa marka maskaxda connect ka qaadanaysa inaad markaad buugga akhridana wixii xaggan ku sawirato taasina waa taas marka one tip baan la wadaagayaa oo abuu dee marka hore akhriska kuma badnaan jirin ma garanaysaa laakiin dee waxay dhahaan markaad doonaysa inaad habit bedesho habitkaa lagu bedelaa marka imika tusaale ahaan one tip baan siinayaa ama hal dee faa'iido oo aad ka faa'iidaysaan muuqaalkan haddii aanad saacad akhriyi karin maxay tahay maalintii waxaad ku daydaa inaad akhrido 30 mirir ama 10 mirirba 10 mirir haddaad imika maanta akhrido dee waqti aad u badan maaha laakiin 10 mirir aad uma badna laakiin dib waad ku akhriyi karaysaa ilaa 20 page 10 mirir ayad baa dhacday maalintii 10 mirir haddaad akhrido dee bishii waxaan ku buug baad ka dhex baxdayba buuggan atomic habits ee sheegayo ayaa James Clear wuxuu leeyahay geel iyo ari ee kuma dirsane adan wax kale isku dayin bal haddaad inta 10 page aad maalintii akhrido 1% isku day inaad maalintii aad improvement sameyso ama aad maxay tahay horumar sameyso haddii aad 1% maalintii aad horumar sameyso waxay ka dhigan tahay 37% ayaad sanadkii improvement sameyso waxay dhahdaan consistency of intensity marka isku day inaad maalin kasta aad shay aad horumariso intii aad 10 shay isku day lahayd marka culimo muuqaalkii maanta intaas maanta ku kooban yahay xaggan buugga ku akhrinay banaankan oo san saaray waa kale buugga akhriyeysay bishii video ma garanaysaa markaan xasraaday caayada dhacaysa iyo scenery ka faa'iideyso marka dee aad u mahadsantihiin muuqaalkan hadduu soo gaaray dee waxaan ku ri subscribe ta kala xishoonen aad u mahadsantihiin inta muuqaalka xiga soo arki doono aad salaamay waan ka baxay